shirkii golaha wasiirada caadiga ahaa ayaa maanta waxaa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre shirka ayaa looga hadlay arrimo fara badan arrimaha amniga ayaa wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigaba waxay ka bixiyeen warbixin ku aadan xaaladda amniga dalku marayo gaar ahaan wasiirka amniga Ducaale waxa uu sheegay in dawladdu ay dadaal badan gashay sidii labada shabeelle iyo gobolka Banaadir amnigoodii tallaabo fiican looga qaadi lahaa ilaa haddana lagu guuleystay in kooxo maleeshiyaadka al-shabaab la soo qabtay ilaa 20 qof inta hadda la hayo sidoo kalena uu magaalada Balcad shalay u gaaray si loo xaqiijiyo amniga deegaanadaas inay maaragtay wanaagsan yihiin iyo diilo ka muujiyo ugana mahadceliyo shacabka doorka ay ku qaadanayaan sidoo kale wasiir dawladda gaashaandhigga xagaa ayaa wuxuu ka warbixiyay qiimeyntii tirakoobka ciidanka iyo diyaar garowga wuxuuna sheegay 2 isbuuc gudahoodu inay soo dhameystiri doonaan arrimahaas xasaasiga kadibna howlgalladii ay bilaaban doonaan sidoo kale golaha maanta waxaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu warbixin ka siiyey heshiisyo ay Soomaaliya iyo Turkiga soo wada galeen dhanka iskaashiga dhaqaalaha ah oo runtii uu aad u tilmaamay sida dawladda Turkigu ay u hanatay shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay uga hagar baxdo sidii u taageeri lahayd dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba wuxuu sheegay in guddi la sameeyay guddigaas oo ra'iisul wasaare ku-xigeenku uu madax ka yahay hase yeeshee oo xiriiriye noogu yahay wasiir maareeye wasiirka ganacsiga heshiisyadaas ayaa waxaa la rajaynaa inay dalkan soo gelin doonaan maalgashi weyn waxaa kaloo markii ugu horeysay Soomaaliya la soo gaaray heshiis ah in Turkiga aan u dhoofin doono khayraadka dalka oo mar alaal markay bilaabatana la rajayn doono in Yurubna ay gaari doonto arrimahaas oo dhan waxaa la rajaynayaa in carwo la sameyn doono lagu soo bandhigo khayraadka dalka 1 ilaa 4 Febraayo sidoo kalena 3 bilood walbana qiimeyn lagu sameyn doono sidii heshiisyadaas loo dhaqangelin lahaa waa wasiir dawladda arrimaha dibadda ayaa wuxuu ka warbixiyay maxaabiista India noo joogto waxaana uu sheegay 43 maxbuus in la soo daayay isla markaana dawladdu ay ka shaqeynayso sidii loogu diri lahaa diyaaradii soo qaadi lahayd dhawaana la rajaynayo in la dhameystiro sidoo kale Febraayo 15keeda iyo 28keeda waxaa iyagana la soo dayn doonaa inta hartay marka taasoo ka dhigan heshiisyadii labada dawlad kala saxiixdeen inuu dhaqan galay lana hirgelin doono Soomaaliyana ay muxuu ahaa muwaadiniintooda dibadaha jooga ay ka warqabkooda ay ka warqabayso isla markaana lagu soo celin doono hoygoodii wasiir deeqa wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa waxay ka warbixisay guddiga madax bannaan ee xuquuqul insaanka oo muddo la soo waday taasoo ah guddi dastuuri ah muhiimna u ah golaha adeeg garsoorka in xubintii geli lahayd ay ka soo baxdo guddigaas isaga qorshe wuxuu ahaa guddi 19 xubnooda oo ka kala yimid dhammaan dawlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dawladda federaalkaba in ay ka soo shaqeynayeen muddo fara badan ujeedaduna ahayd in 9 xubnood la soo xulayo koow lagu soo xulo in la helo inay saami qaybsiga muxuu ahaa Soomaaliyeed u dhan yihiin 2 ugu yaraan 3 dumar inay ku jirto qof ka midna inuu matali karo dadka baahiyaha gaarka qaba waxaa mahada in arrimahaas oo dhan hadda la soo dhameystiray oo 615 codsi laga soo reebay 74 codsi 74 imtixaan laga qaaday iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen xubno ka socda aqalka sare iyo golaha shacabka bulshada rayidka iyo beesha caalamka taasoo runtii ahaa nidaam loo maray si furan oo 45 si u dambeysayna lala yeeshay waraysi ama interview